waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno aqab duco oo mar dhow laga saaray kooxaha qawaariijta ee argixisada ayna ka saareen dadka deegaanka oo sida uu sheegay ninka odaga ahaa waxaa la yidhi dowladda federaalka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha ciidamada ayaa ku dhawaaqay in dadka shacabka ahu ay iska dhaqaajiyaan iskalana diriraan kooxaha qawaariijta waxaan aad ugu faraxsannahay in dadkaanu iyadoo la og yahay meeshaan hadda la joogo iyo dadka qaar ay dalbanayaan ciidamada kumaadooska iyo guutooyinka iyo ururada iyagoon cidna gacan ka helin iska saareen kooxihii argixisada farxad gaar ahay noo tahay annagoo xildhibaanadii heer federaal ah oo noor kacaayo xildhibaankii deegaankan waa wada matelnaa xildhibaankiina waa idiin wadnaa waana ku faraxsannahay sida aad u soo dhoweyseen una qaadateen baaqiisa sida aad sheegteen asagana waxaa laga rabaa go'aanka uu qaatay iyo dadaalka uu sameeyey xildhibaanada la midka ah ayaa looga baahan yahay dadka reer aqab duco iyo nuur duglana waxaa looga baahan yahay go'aanka ay gaareen iyo tallaabooyinka ay qaadeen deegaanada kale iyo dadyoga kale laga rabaa inay qaadaan magaalada muqdisho ee caasimadda iyo magaalada jowhar ee caasimadda iyadana dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan malaynayaa inay dhanka caasimadda muqdisho ay naga xigto intaasna cadow kuma jiro waxaana sababay dadka deegaanka ee dhulkaas deggan waxaan ku faraxsannahay sida aad isku abaabusheen ulana dirirtaan kooxaha qawaariijta waxaan rajaynayaa dadka deegaankan hadday yihiin shabeellada dhexe iyo bariga gobolka galgaduud iyo qaybo ka mida gobolka mudug dagaalkan way bilaabeen guulo waaweynayna ka gaareen laakiin waxaa looga fiican yahay barabagaandada iyo baraha bulshada iyagoo aqab duco jooga ayaa waxaa laleeyahay waxay joogaan cadale inay yidhaahaan cadale ma joogna aqab ducaan joognaha loo baahan yahay dadku ma fahansano haddii maantay aan joogno ay afarta tuulo ay xur tahay dadkii deegaanka iyo dowladdii ciidamadii dowladdan ay ku sugan yihiin waxa noo dhiman waa magaalada aadan yabaalo keliya marka laga hadlayo gobolkan shabeellada dhexe kadibna waxaan u soconnaa meesha la yidhaahdo galguduud iyo mudug laydinkana tegi maayo ilaah idinkiis waxaa laydinka rabaa inaad soo xirtaan xuduudda dadkan deegaanka ah iyo dadka jiirka ee walaalaha ah ay leeyihiin ay amay galguduudka leeyihiin amay mudugka leeyihiin inaad soo xirtaana laydinkaga baahan yahay waxaa laydinkaga baahan yahay dadka cabsanayo tuulooyin waxaa jira iyo degmooyin cadowga laga xoreeyey ee dadkooda uu maqan yahay xaggee jiraan dadkaas in leeswarsado waayo in maamuladooda la weydiiye waayo in matalaadooda hadday xildhibaano leeyihiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed in la weydiiye waayo tanna waxaa waaye xilliga hadda lagu jiro tii laysku baranayo waaye waxaa laga qoray magaaladan deegaankan aqab duco waxay ku timiday dibaa la iska warsan doonaahe in lagu bato looma imaana in laysku bartaa loo yimid waxaan rabnaa marka wakhtigan hadda la galay kii laysku baranayo waay kii lagu ba'aaya maan horto oo cid wax biciisaa uma joogta abaabulkan iyo dagaalkan waa kii laysku baranayey dadaan waxba hayn ayaa bannaanka in soo baxaan oo dadaan tiro badnayn amaan micno badnayn in soo bandhigaan gadaalna iska mariyaan awooddii iyo tayadii iyo tiradii dowladdii iyo ciidamadii kumaadooska ee xoogga dalka soomaaliyeed ayay waxay leeyihin annagaa wax tarno dadow hebel iyo gobol hebelna wax tari maayaan inaad dadkaas dareensiisana la iska rabaa inad wax taraysaan